qof walba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira jacaylkana sibuu ka aaminsan yahay inuu dhalanteed bay u aragtaa inuuna aragti kooban bay ka haysataa mawduucaygu ma aha qeexidda ereyga jacayl heerarkiisa iyo noocyadiisa balse waxaan doonayaa inaan hal iyo laba ka iraahdo ka hor inta aanan guda gelin mawduuca aan ka hadlayo tusaale ahaan haddii aan ku dhaho waxaan ku siinayaa liin dhanaan balse aanan anigu haysan sideen kuu siinayaa inaan adiga ku siiyo waxaa ka horeysa inaan anigu haysto marka hore markaan anigu haysto baan adiga ku siin karaya macnahaygu wuxuu yahay markaad adigu naftaada jeceshahay baad wax jeclaan karaysaa jeclow naftaada dareenkaaga hantidaada iyo waqtigaaguba waa mulkigaaga ku qabso waxaad adigu jeceshahay dadkana uga faa'iidee qor akhri jimicso orod cunto kari qofba waxbuu ku dareemaa farxad oo caajiska iskaga saaraa oo arag maalin walba fursadaad isku bedeli karto ku rumayn karta riyadaada u samayn karta naftaada waxay jeceshahay kaga waantoobi karta caadooyinka xunxun kuna beeran karta caadooyin wanaagsan maalintaadu yeesan kugu dhaafin shalaytada shalaydii ku dhaaftay iyo berri oodan weli gaadhin ugu noolow maalintaada si farxad iyo reynreyn ku dheehan tahay fahan naftaada waan ogahay waqti bay qaadan socdaalka aad ugu jirto raadinta fahanka naftaada laakiin muhiimaddu waxay tahay natiijada aqbal naftaada waa caadi inaad khaldanto maxaa yeelay malag matiid aadami ayaa tahay hana raadin dhamaystirni ka xorow xusuusaha xanuun kale ee tagtadaadii tabnayd yaraantaada ama weynaantaada markaad aqbasho naftaada waxay ka dhigan tahay inaad aqbashay halkaad ku liidato ceebahaaga maalinka ku dhaaftay taad ka faa'iideysatay maalinkaad faraxsan tahay iyo maalinkaad murugaysan tahay intaba barasha inoo horeyso magacaygu waa Nimayra waa muuqaalkii ugu horeeyay waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan isjeclow isfaham oo is aqbal